haddaba waxaa khadka magaalada Minneapolis Minnesota ku jira Maxamed Barre waxa qoyahan Soomaaliyeed oo ka faalooda arrimaha Mareykanka. Maxamed Barre soo dhawow. waynu arkaynay in dabaaldegii ama munaasabadii aan idhaahday dilkii Floyd ay maanta ku beegan tahay sanad kadib. maxaa isbedelay sanadkaasi ayaad oran kartaa markaad eegto xaaladda guud ee Mareykanka iyo xagga cunsuriyadda? run ahaantii waxaan dhihi karaa isbedel weyn ayaa ku imaaday, ha noqoto dhinaca dowladda, private companieska, ha noqoto macnaha dadweynaha siday u nool yihiin iyo cabsida laga qabo booliiska. waxaan xasuustaa hadda ka hor nin Soomaali ah in uu fasax qaatay maalin qaldan, maalintaasayto oo ku saabsaneyd maalinta loo dabaaldego maalintii macnaha civil rights movementiga. ninkii markuu shaqada imaaday ayaa shaqadii laga eriyay, looma micnayn lamana siinin chance macnaha waxa waaye qaladka dhacay lagu saxo. marka taas waxaa ku cad in macnaha isbedelka George Floyd naftiisa ayuu ku waayay, laakiin George Floyd wuxuu ka tagay legacy isbedel keenay. taasna waa midda keentay maanta in familkiisa la filayo uu la kulmo madaxweynaha dalka Mareykanka, isla markaasna macnaha kambaniyo badan ha ahaadaan private ama ha ahaadaan kuwa publica waxay isku dayayaan inay macnaha reform ku suubiyaan habkay u shaqeeyaan, sida dadka minority-ga u arkaan iyo sida loola dhaqmi lahaa. waxaana midda ugu weyn ay tahay in police reform badan uu jiro. waxaa kasii weyn in June 10th ahna maalintii macnaha waxa waaye la gunaanaday slavery-ga dowladdu inta badan ay u aqoonsanayso inay noqoto maalin holiday ah oo waxaad sheegaysaa adoonsiga markii la joojiyay adoonsiga la joojiyay saxiix. marka isbedelka uu waa gartay haddeen hore ugu socono ma la oran karaa imika isbedelkii xagga siyaasadda ayaa xawli ku socda markaad eegto kii kale oo dhankii siyaasaddu badanyay, iyadoo iminka nidaamkii xukunkii Trump isbedelay, iminkana madaxweyne ku-xigeenkii ay tahayba gabadh asalkeedu madow yahay. isbedelkaas siyaasadeed jawi sidee buu ka abuuray Mareykanka iyo weliba habdhaqankii dowladda iyo dadka laga tirada badan yahay sida booliska ama hay'adaha kale? wuxuu soo celiyay marka hore in macnaha la xuso, la qiro, in la ogaado dhibta macnaha dhacday, isla markaasna in ay dowladdii ay noqoto midda u dooda. waad ogeed waqtigii Donald Trump caburin ayuu ku hayay dadka minority-ga iyo cabashadooda. maantana waxay haysataa community-ga minority-ga, particularly macnaha African American community, waxay haystaan ama people of color waxay haystaan munaasabad ama chance ay macnaha arrimahooda ugu gudbin karaan White House-ka, ayna u noqon karto macnaha waxa way dowlad ka talisa arrintaasi isbedel weyn ku suubisa sidii loo arkay civil rights movement-ga bilowday 40 sano hadda ka hor. maanta waxay ku aadan tahay Africa Freedom Day 58 sano kadib maalintii la aasaasay. waana san guuradii koowaad oo qof African American ah si siraca loogu dilo iyadoo adduunka dhan ay ka fiirsanayaan Facebooka. waxaan u badinayaa macnaha in arrintan laga faa'iideysan doono. waa runtaa sida warbixinta BBC ay sheegtay, dad xukun doon ah, dad kale oo iyagana macnaha ay dhab ka tahay arrimahan, in wixii oo dhan la isku dhex qasmay oo qof kasta uu dhinac ka jiidanayo. laakiin waxaan rajaynaynaa inaysan noqonin the talk of the town, wax ku dhammaada hadal waa gartay Maxamed. waxaan ku soo koobayaa Soomaalidu Minnesota waa halka deganaayeenba Minneapolis. bulshada Soomaalida sidee idin saameeyeen ama maxaad ka xusi kartaa arrimahan ka socday Minneapolis? sida hore aan u sheegay macnaha interviewga hore BBC iga qaaday, Soomaalida waxay garab taagan tahay walaalahood African Americanka heel iyo hooba, sababtoo ah mar waa immigrant, mar waa muslimiin, mar waa African American. marka wax dhib kasta oo dhacdo way isla qabaan, waana isku baakad, waxaana loo fiiriyaa hal meel. Soomaalidu waxay heel iyo hoo iyo garab istaag aan waan gartay Maxamed. aad iyo aad baad u mahadsantahay waqtiga naga soo koobmay. aad baan ku salaamay oo mahadsantahay. Assalaamu calaykum.